1960kii ayuu dunidan kaga soo biiray magaalo dhacda bartamaha Soomaaliya taas oo dadkeedii ay ugu magac dareen balad weyn yacni magaaladii weyneyd ciidanka banda music waxa uu ku soo biiray 75kii waxaana uu ka tirsan yahay ilaa maanta oo aynu joogno 2021 taas oo ka dhigan in duulkan turumbooyinka durbaanada iyo fiyoolinka kaga dhawaajiya ee u qaabilsan ciidanka goobaabada maqalsiinta heesaha wadaniyada iyo tumista astaamaha qaranka uu ka tirsan yahay nus qarni 6 sano la waa taliyaha banda music-da booliska dalka waxaana uu soo saaray macallimiin iyo arday rag iyo dumar isugu jira oo ay maanta ku faanto kooxda banda music-da booliska gaashaanla dhexe maxamed cali xalaal oo ruuxa aan sheekadan uga waramayno ahna taliyaha ciidanka banda music Soomaaliya ayaynu weydiinay marajaanka yacni isla jaanqaadka kooxda marka ay tumayaan heesaha iyo waxa u sahlaa horta wax kasta waxa weeye inuu qofka la barto ayaa mataqaana muhiimka oo ah sida macnaha in badan ba aad ku aragtay waxaad arkaysaa 300 400 qofood 500 qofood oo ciidan ah oo gaardinayo oo lugtan isla heelayo gacantan isla heelayo markii la ciidamay oo loo tababari ay mataqaana ay u suurtoodi in ay isla jaan qaadaan islana helaan muusikada sidaas oo kale inta waay waxay leedahay xarfay leedahay oo gaar ah waxay leedahay yani mataqaana qoraal oo gaar ah ay leedahay oo yani mataqaana aan sidii af Soomaaliga oo kale inta aan la dhehina mise waa ba ama waa ta ama waa ja ama waa ha ama waa a ama waa b ama waa c aan la dhehin oo xarf gaar ah leedahay oo loo yaqaano shinguri quattro spacero shanta xariiqan iyo afarta dhaxtaal rigada ka kor iyo rigada ka hoos waxyaabo lagu qoro ayaa jirto waxyaabahaas la baranayaa markuu waxaas oo barto qofkii wuxuu ku soconayaa wax la yiraahdo tempo ku soconayaa heeskii tempo ku socoyaa qoraal ku socdaa yani mataqaana waxa suurtagelaysa marka in isla jaan helaan taas ayaa keenayso markii aqrintii iyo teembadii iyo muusikadii oo qofka oo qatnootooyinkii oo bartay isla waxasmaan labada qofood waa isla jaan qaadaysa wayna isla helayeen oo ninka soo dariiqo uu leeyahay dariiqiisa soo maraya ushan ay wareejinayso gabadhan askariyada ay ka tirsan booliska banda music waa astaanta hagidda kooxda music tumaysa sida uu sharaxayo gaashaanla dhexe maxamed cali xalaal maanta banda musicale ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay maraysaa heer aad iyo aad u wanaagsan heer aad iyo aad loogu faani karo usha waa xibin kamid ah muusikada markii la soconayo ama ay soconayaan ciidanka ama ciidan la istrisoon la gaarsiinayo muusikada hoggaankeedii waaye teembadaas ayaa mataqaana lagu hoggaaminayaa ma aha usha inay muusig yeerino hayso usha waxay ku eg tahay teembeenay ku eg tahay waa teembadaas in la raaco wiiftaas ushaas in teemba ahaan lagu raaco lugta iyo isha iyo muusikada si ay iskula dhacaan waa hoggaamin waa qaab loo tababaray leedahay oo loo bartaa waxayna ka mid tahay hoggaaminta baandada muusikada yeerinaysa ka mid tahay
waagaa baryay bilicsan arooryo baxsan maalin boqoran waa mid ka mid a heesihii ay garaacayeen kooxda Banda Music. Banda Music waa ciidan qaran oo u abaabulan kicinta dareenka dadweynaha iyaga oo u maraya dhabaha wadaniyadda, dowladnimada iyo daljeclaysiinta. waana koox furo u ah gaardinta ciidanka, dabaaldegyada qaran iyo ku luuqaynta astaamaha qaranka. عبد الشكور شاشة، وarbaahinta City، مقدشو.